Boodhari oo sheegaya in WhatsApp-ka oo Axmed Rashiid loogu soo marinayo hanjabaadyo kala duwan, loogu soo hanjabayo in dil loogu soo hanjabayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halka aad toos nagala socotaan waa janalkeeni Soomaali Tijaabi. waa haddii aad ku cusub tahay waxaa wanaagsan inaad subscribe saartid si ay kugu soo dhacaan warbixino walba oo ka cusub social media iyo caalamka iyo qisooyinka. Waa mahadsantahay fiidoona like noo saar. Marka waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno sida ciwaanka title-ka ama thumbnail-ka ka soo aragtaan. Marka inta muuqaal ka hadlin waxa aad kumatiga hoos soo dhigay YouTube-kayga labaad booqda subscribe saara. Marka waxaan rabaa inaan nii hadlo sida screenshot-ka nii muuqdo codkayga ninka hadda niga muuqdo oo la yaqaano oo qof walba maanta oo iska inditiri kan oo la yaqaano nin caan ah oo la yaqaano oo magaciisa la yiraahdo Cabdifataax Boodhari oo sheegay in fiidiyowgan adiga wuxuu yaali 11 saacadood oo yaali. Boodhari ayaa wuxuu sheegay in WhatsApp-ka Axmed Rashiid WhatsApp-kiisa Axmed Rashiid uu ku soo darsaday kadib aqbalay uuna sheegay Axmed Rashiid inuu u soo hanjabay. Wuxuu u soo hanjabay WhatsApp wuxuuna yiri jooji warka wadid, jooji sharmaboy arintiisa iyo waxa dabagalaysa jooji, hadii kala dil isku diyaari. Macnaha wuxuu yiri Cabdifataax Boodhari ninkan Axmed Rashiid la yiraahdo dil ay ugu soo hanjabay. Dil ay ugu soo hanjabay ayuu yiri. Boodhari markaas arinta kama yareysan wuxuu yiri aniga qorigeyga waa kaas ma ujeedaa sawirka screenshot-ka nii muuqdo meesha. Aniga samina wata zamankeyga waa kaas. Asigana Axmed Rashiid biskoolada wata. Wuxuu yiri asigoo biskoolad wato anigoo zaman wato mayuu idili karaa aniga. Haduu rag dhaliyahay ha isoo aadabo. Social media waxay martay heer qori la isku qaato. Cay way soo dhamaatay, booto way soo dhamaatay, hanjabaad way soo dhamaatay, waxay imaatay qori. Hatta Cabdifataax Boodhari ma aan YouTuber kale oo caan ah la sheegay oo kamid ah media Yaasin Haliyay dad badan u soo hanjabay oo YouTube-kooda hadda oo fiidiyow ku jiro. Waa ninka soo hanjabayna waa ninka Axmed Rashiid oo Daar Cali soo u shaqeeyo. Xaaladda social media way cakran tahay. Muuqaalkeena bartaas ayaa ku soo gabeynaa wixii warbixino kale oo niil soo wadaaga.